بسم الله الرحمن الرحيم waxaan horta si aad iyo aad ugu hambalyeynaya shirkadda Hormuud adeega EFC Plus ay ka hirgelisay Soomaaliya runtii adeegaasi waa adeeg lagaga fursaday wax kasta oo caqabad ah oo ka jirta xagga ganacsiga dalka gudihiisa waxyaabaha cajaa'ibka ah waxa kamid ah qof kasta oo Soomaaliyeed hadduu baariyo joogo hadduu dalka gudihiisa joogo gaar ahaan dalka gudihiisa markuu joogo ama magaalada joogo ama baadiyaha joogo wuxuu access u leeyahay oo markiiba heli karaa inuu akoonkiisa lacag kala baxo qof lacag u wareejiyo baahidii dadku ay u qabeen in lacagta oo kaasha la qaado riskigaasi ama khatartaasi meesha way ka baxday waxaagii oo kugu jira akoonkaagii ayaa taleefankaaga ku maamulanaysa waa adeeg runtii aad iyo aad u casri ah oo ay adag tahay xataa wadamada kaleeto in wax sidaa u sahlan laga helo waxaad ku qasban tahay meelaha kaleeto inaad hawlo badan oo kale aad marto laakiin tani waxay fududaysay oo runtii tusaale ahaan annaga wasaaradda maaliyadda dadku markay rabaan inay cashuurta bixiyaan koontadooday ka bixiyaan iyagoo EFC maraya koontada bangiyada ka furan ee wasaaraddu leedahay ee central bank ku xidhan bay si fudud ugu shubi karaan lacag taasi waxay fududaysay qofkii inuu line galo oo maaragtay uu saf galo oo meelo kale tago marka lama soo koobi karo faa'iidada runtii lagu qabo EFC Plus waxaana runtii ugu hambalyeynaa shirkadda Tobanguurada maaragtay guusha ay ka gaadhay xagga businesska